weerar ka dhacay gobolka Dhacay Dalka Suuriya ee dalkaasi Syria ayaa la sheegay in lagu dilay ugu yaraan 28 qof. Warbaahinta dawladda Suuriya ayaa baahisay weerarka ka dhacay gobolka Dhacay Dalka Suuriya ee ku yaala bariga Suuriya in la beegsaday basas ciidamadu ay saarnaayeen. Dadka ku dhintayna ay ciidamo u badan yihiin inkastoo ay dad shacab ku jiraan, balse la warajo madax bannaan ayaa sheegaya in dadka weerarka lagu dilay kulligood yihiin askarta dawladda Syria. Ilaa hadda ma jirto cid si rasmi ah weerarkaasi u sheegatay. Waxa la socota arrimaha xuquuqda aadamaha ee dalkaasi Suuriya ee fadhigeedu yahay dalkaasi Britain. Waxa ay sheegtay in tirada dhimashadu ay gaarayso 730 askar. weerarkana ay geysteen ururka isku magacaabay dawladda Islaamka ISIS. kooxda oo ila wareedyo ku sugan gudaha Suuriya soo xiganaysa waxa ay sheegtay in weerarka uu ahaa mid si weyn loo qorsheeyay oo ay maleeshiyada ISIS la beegsadeen 3 bas oo ay saarnaayeen ciidamo iyo maleeshiyada daacad u ah dawladda Suuriya. ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa ku bilaash. isticmaal shabakada ugu ballaaran geyga Somaliland. haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama xidig 2 eber 2 afargees. tayo waa Telesom. ma ogtahay inay Somtel bilowday abaalmarino cajiib ah oo ay macaamiisheeda ugu tala gashay. waxaa ka mid ah abaalmarinahaas dahab, microwave, TV-yo iyo moobilo dhammaan shirkadda Samsung ah. account lacag ku jirto oo banka dahabshiil ah. dalxiis aad ku degto hoteelada Damal iyo waliba 10 gaari oo Hyundai cusub ah kuwaas oo qaar ka mid ah gaarayaan qiimo $30,000. intaas iyo xidhmooyin kale oo guud ahaan 5,000 oo abaalmarinood noqonaysa waad ku guuleysan kartaa. waxa aad ka mid noqonaysaa liiska tartamayaasha haddii aad ku shubato ku hadal ama aad ku shubato internet ama aad tahay qof ka ganacsada ku shubashada ama aad tahay qof u adeegsada dahab qaab shakhsi ah iyo qaab ganacsi ah. ka qaybgal macmiil oo ka mid noqo guuleystayaasha. si aad u hesho xog intan ka badan fadlan garaac 333 ama 111.